waxaa soo gabagaboobay mid ka mid ah halhaysadii caanka ahaa ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee ahaa in isaga iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre ay isla dhameysan doonaan muddo xiliidkooda waxaana ay dad badan dareemayeen in maadaama uu madaxweyne farmaajo laftiisa mar soo ahaa ra'iisul wasaare culays lagu saaray inuu xilka iska casilo in way aragnimadaasi uu ka faa'iideysan doono madaxweyne farmaajo oo sanadkii hore soo gaaray magaalada tan Washington ayaa waxa uu sheegay in dawladda uu madaxweynaha ka yahay ay ka nabad gashay ishaysadkii hore looga bartay dawladihii ka horeeyay fiiriya safaaradan waxaan ku iibinaa in sheegaya oo sir ah waxyaabihii isku rigi jiray yaa meel dhignay madaxweynaha barnaamij isridaaya wixii lagu kharash gareyn jiray waxa safaaradaha ku kaseenaho marka laga soo tago kala aragti duwanaanshiyaha mararka qaar la arkayay haddana ma jirin khilaaf weyn oo u dhaxeeyay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre waxaana dad badan kadis ku noqotay markii uu gudoomiyaha aqalka hoose ku dhawaaqay in kalsoonidii ay kala noqdeen ra'iisul wasaare xasan cali khayre gudoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra'iisul wasaare uu yahay xasan khayre baarlamaankana sidaan ayuu codeeyay waxaa ogal u codeeyay 170 xildhibaan waxaa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay malaha sidaa daraadeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeel gaarka ah oo in si degdeg ah u soo magacaaba ra'iisul wasaare iyo xukuumad wadankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay ra'iisul wasaare khayre oo xilliga uu gudoomiyaha baarlamaanku sheegay in kalsoonida ay kala laabteen ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ayaa si degdeg ah ugu soo laabtay magaalada Muqdisho wuxuuna aqbalay in xilka uu iska casilo isagoo sheegay in kalsooni kala laabashadu ay ahayd mid aan loo marin dhab sharci ah anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro aan loo marin habraaci saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed anigoo og inaanay ku jirin ajandaha anigoo og inaan laga doodin anigoo og inaan loo codayn anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka inkastoo ra'iisul wasaare khayre uu noqonayo ra'iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa dawladihii 20 sano ee ugu dambeeyay dalka soo maray haddana xilka qaadistiisa waxa ay ku soo beegantay xilli xasaasi ah oo ay howlo badan hor yaaleen dawladda hadda jirta qabqabsiga siyaasadeed mooshinada iyo xilka qaadistu waa mid siyaasadda Soomaaliya lagu arko mar walba oo ay dhamaanayso muddo xileedka dawladda markaasi jirta taariikhda siyaasadda Soomaaliya dhawaangal kuma aha ra'iisul wasaare sanad ama bilooyin yar xilka haya ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya sidoo kalena xilka hayay xilligii kala guurka ee 2012 ee la soo dooranayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud cabdiweli cali gaas ayaan weydiiyay waxa keena qalqalka siyaasadeed dhamaadka muddo xileedka dawladihii Soomaaliya soo maray 20 sano ee u dambeysay طبعا waxaa la gaaraa waqtigan oo kale waqtigii la yiraahdo baarlamaanku weerixi jiray oo marka waqtu ka dhamaado ay la raadin jiray sida ay ku darsi ama se extension ama se inay dheereystaan waqtiga ay uga shaqeyn lahaayeen wayna dhacdaa 2012kii dabcan anaga baarlamaanku nagama keeni karin aniga mushriga ma keeni karin ra'iisul wasaarahan sababtoo ah Kampala Code ayaa arintaasi yaani diidaysay marka runtii ma aanan baarlamaan markaasi awood leh oo xukuumadda ka keeni kara mooshin ma uusan jirinin madaxweynaha iyo gudoomiyihii baarlamaanka markaas jiray Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo madaxweyne Sheekh Shariif iyo anaguna isku aragti baan ka ahayn arinta doorashada waxaan kulgayo ka shaqeynay in doorasho dhacdo wadankaanina doorasho wadan gudihiisa lagu qabto markii u horeysay 2016kii madaxweynaha waqtigaas joogay Xasan Sheekh Maxamuud runtii isaga ayaa riixayay oo rabay doorashada in wadanka doorasho ay ka dhacdo laakiin baarlamaanka iyo gudoonkiisa waqtigaasiba waxay la soo taagnaayeen oo lahaayeen baarlamaanka waxa bedeli kara baarlamaan la soo doortay ujeedadiisu ahayd ilaa si hadaba ay ku doodayaan cod iyo qof loo helo anaga sii joogayna wax saxana ma aha hadii taa tahay ha ku shaqeeyaan waqtigeeda ha lagu qabto haddii lagu qaban karo doorasho cod iyo qof ah
saddexda bilood soo socota hadii ha ku qabtaan laakiin arintaas suurtagal maaha ujeedaduna waa cimri dheeraysi iyo kororsi weeye wayna dhacdaa mar kasta oo marxalad kala guura la gaaro baarlamaanku sidaan in u dhaqmo waa caadi weeye wax hadda annaga qariib lagu amaaha dadka siyaasadda la socdaah waxa ay qabaan in xilka qaadista ama riditaanka lagu sameeyo madaxda sare ee dawladda ama mas'uuliyiinta u sareysa dalka aysan ahayn mid xal ka keenta caqabadaha taagan balse ay tahay mid albaab u furta caqabado kale iyo khilaafaad hor leh